السلام عليكم صاحبيال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub waxay noo mareysay qiyaanadii ii geysatay marnaba ma ilaabi doono runaantii mayda waxaan isku baranay jaamacad ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaan waxaan ku qaadan jirnay seminar halka ayaan isku baranay markii aan bartay waxaan noqday mid farxadii ka dambadatay dhabtii waxay ahayd gabar dhan walba ka dhameystiran isla maalinta ayaa lambar kala qaadanay markii aan kala tagnay ayay soo wacday isla habeenkii ima soo bixin waxyaabo kale waxa ay soo wacday inay casharadii wax igu weydiiso 9kii habeenimo ilaa 10kii 30 daqiiqo ayaan wada hadlaynay halka ayaan iskala jaan qaadnay habeenada kale waxaynu ahayn dad sida caadi ah u wada hadla kadib waxaynu noqonay laba aan waxba kala qarsan xaqiiqdii mayda aad ayaan u jeclaaday waxaan is arki jirnay halka khamiis aan seminaarka qaadano inta kale moobilka ayaan wada soconay kadib ayaan u sheegay inaan jeclahay isla markii waxay igu tiri aniguba waa ku jeclahay waan kuu sheega rabay laakiin waxaan islahaa ama kugu adkeeyaa run ahaantii aad ayaan u farxay maalinta farxaddeeda lama qiyaasi karin waayo waxaan helay midii nafteeda u baahneeda markii aan wada soconay maalin badan kadib waxay noo soo dhamaaday seminaarkii inkastoo aan la kulmin xiriirkeen wuxuu ahaa mid iska caadi ah kadib ayaan waxaan dareemay xoogaa isbedel markasta aniga ayaan waco markii aan weydiiyo waxa lagu dhahaa hadda ayaan niyadda kugu hayay waan ku soo bici rabay maalin badan kadib waxaan waayay iyada muddo isbuuc ah moobilkii haddii aan waco wuu dansan yahay ma aqaano meelan karaadsho waxaan galay xaalad aad u xun maxaa yeelay qoftii aan jeclaaday meel kuma sheego markii dambe moobilkii waa la daaray markii aan wacay waxa iga qabtay wiil waxaan weydiiyey maida wuxuu igu yiri gabadha waa xaaskayga markaa baan ku yiri igu dhiibayada markii liigu dhiibay waxay igu tiri waa sax waa ninkayga dhawaan ayaan isguursanay teelkiina waa liigu damiyey run ahaantii aad ayaan u nahay maalinta waxaan gara waayey halkii aan joogo waan arkay qisooyin sidan oo kale ah ma ogi gabdhaha waxay ka faa'iidayaan markii aad waxbarashada ku jirto waa loola jaan qaadayaa xiriirka laakiin markii waxbarashadii dhammaato aad kala tagtaan xiriirkii waa lagu jarayaa annaga ilaabay in muuqaalkan aad la garayso sidoo kale la wadaagto asxaabtaada si aan u helno asxaab sidaadii oo kale fikirkaaga qaybta hoose faallada nagu soo gudbi waxay noo tahay dhiirigelin aad weyn